subaxaan waxaan la soo kacay walwal anxiety waa seexan kari waayay so la soo kacay afkaartaydii baan akhristay banaankaan soo baxay geedkaa ma arkaysiin geed hadduu ku ag yaallo xaafadaadii ama gurigaada agtiisa geedka dhab ku dheh geedka wuxuu leeyahay energy oo kaa bi'inayo walwal iyo waxaas okay haydhihin ma geedka aaminsan tahay acuudu billahi min shaytaan rajiim ilaah ma aaminsanin maxay tahay geedka energy kaa bixinaya geedka wuxuu release gareeyaa energy oo qofka bini aadamka u baahan yahay because especially nowadays technology maadaamaan kor saaranahay maadaamaanan sidii awal horay back in the day baadiyaha aan u nooleen ana u noolin kobaa gashantaa mar waliba kobaa xeran tahay haye you're not connecting with nature geedaha dhirta dhulka koba la-aantaasi caafimaad badan buu qofka bini aadanka ka helaa energy baad ka helaysaa energy oo jirkaadii regulate garaya ayaad ka helaysaa gode oh my god I need to do better because waa inaan soo qaataa bahalka selfiga anyways geedkan baa saan madaxa u saartay adkaartayda waan akhristay again ilaah baan la connect gareeyay making visualizations wixii caloosha ka dareemayay anxiety walwalka iga tagay alxamdulilah I feel so good because negative energy-gaygii baan geedka siiyey geedkana positive energy buu siiyey hayla yaabin waa run waa scientific studies waxan ilaahay subxaana wa tacaalaana everything wuxuu noogu umin anaga ka faa'iidaysano faa'iiday noo tahay it's good for us I feel so good alhamdulillah connect with nature okay geedaha dhirta shimbiraha wax waliba maaragta ilaahay anagu